Waan waxaa soo baxay in xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka ay kala tageen ninkeeda oo lagu magacaabo Axmed Xirsi oo ay u lahayd 3 carruur ah. Haddaba Carafaad Cabdiraxmaan Cali oo ah wiil dhalinyaro oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa baraha bulshada gaar ahaan Facebook ku baahiyay dalab uu ku codsanayo inuu guur diyaar u leeyahay xildhibaan Ilhaan Cumar oo in muddo ahba uu jeclaa. telefishinka Sahan ayaa saaka Carafaad kula kulmay magaalada Hargeysa waxaanan ugu horeyn wax ka weydiiyey goorta ku dhashay dareenka jacaylka ah ee uu qaaday xildhibaan Ilhaan Cumar. Sahan TV oo salaamaya arrintan waxay ku dhalatay muddo ka hor markii ay ololaha bilowday Ilhaan Cumar ay tartamaysay kursiga Koongareeska ku guuleysatay muddadaas muddo badan laga joogo sanad dhadhow muddada waa jeclaa intaabana waxaan dhowr email baan u diray dhowr meelood oo kala maro ka duwan baraha bulshada si aan u helo laakiin way suurtagal weydii taas ka liftay markaa inaan baahino oo ku baahiyo baraha bulshada. Warkaagii bulshada u gaadhay aad baad u baahisay maxaa feedback kaaga soo noqday ma falcelin? Soomaalidu inta badan waa warkaad waa la qaadaa dhigay baraha bulshada uu galay arrimo badan bay iga yimid ka mid tahay caanimo doonaya inuu dhoofaabo doonaya Ilhaan doon ma hay waa wax kala doon dhaqaalu doonaya wax dhowr ka qodob bay iga yimid laakiin waxaan ka cadeynayaa inta mid waxba ka jirin ee meesha jacayl yaalo Ilhaan aan jeclahay jacaylku wax la isku yaabo maaha waa de Soomaalidu hore boodhar ugu dishay jacayl de waxa way la yaabeen moodadka Soomaaliyeed inay leeyahay qof baan jeclahay marka waa arintani waxay isugu soo biyashbaraysaa gunteedii gunaanadkii inay tahay jacayl isla markaana di feedback ka sugayna Ilhaan inay jawaab celinteeda. Ilhaan Cumar waa qof caan ah waa xildhibaan ka tirsan Koongareeska Mareykanka adiguna waxa tahay wiil dhalinyaro oo ku nool magaalada Hargeysa arrintaadani inay ku suura gasho rajaynta laga ka qabtaa. Waxaan ka qabaa rajo fiican ma sha Allah in arrintani muhiim in Ilhaan gaadho ruuxantana saan jecelahay waa gaadhay iyadoo kulli raanti wax la yaab leh uma aragto oo waxaan rajaynayaa in arrintaas mid dhal fiican ay yeelato isla markaana jacaylkayga isalada muhiimada waa inta maadaama jecelahay waan wax dhaco oo la jeclaada maaha wax iyada kulli la yaab ku noqonaya dadka kale ee Mareykan iyo dadka xilka u haysta iyo dadka doorteena maaha wax la yaab ku noqonaya. Diimka Ilhaan Cumar muuqaalkaagan ay daawato isla markaana jacaylkan aad u soo bandhigtay ay daawato ugu dambeyn maxaad halkan fariin u marinaysaa? Fariinta halkan marinay waxa weeye Ilhaan inaan hore isugu dayay dhowr meelood hore email la'aan ku helo meelo badan soo maray xiriirkayga dhowr jeer hore baraha bulshada ku baahiyeen meelaha kala xiriiro Ilhaan la siiyo laakiin taas maadaama ay dhici weydii hadii muuqaalka Ilhaan aragto waxaan fariinta u diraya waxay tahay in Ilhaan aan jeclahay muddo dheer jeclaa ruuxantii khudbadeeda waqti badan ku qaato maalintii tuu hawraysan daawada khudbadeeda iyo barnaamijyadeeda sidaas awgeed tixgeliso codsigayga. Ilhaan Cumar ka hor xiriidho kala duwan haasawe waxyaalo noocaas ma sameyn jirto horta ruuxantii nolosha ku faraysan haasawe samayso waa de noloshan ay qayb ka tahay in xiriir lamaane la yeesho in de rag iyo dumar inta isku xiriin laakiin wax jacayl oo la xusi karo oo ka Ilhaan wax ka horeeyay wax ka dambeeyay ma jiro ma wixii hore dambe wixii dambe wixii hore haynaga maqnaa wixii dambe. Liibaan Cusman Cali telefishinka Sahan magaalada Hargeysa.